Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan oo wanaagsan daawade waqti kastoo ay ku tahay. Halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa qaybtii 7 ee buugga Zaad iyo Sahayda Ramadaanta. Qoraagu markii uu ka soo hadlay sadaqada iyo faa'iidadeeda adduunyo, waxa uu kaaga waramayaa in aan dheeftu bilaash ku imanayn ee ay tahay inaad u dadaasho. Isbeddelkii 5 maalmood waxa uu ka soo cararay Afrika dagaaladii sokeeye dartood, waxaana uu soo galay wadamada Carabta. English ayaa uu ku hadlayaa, Carabigana waa uu jajabsanayaa. Waxa uu ku helay wadanka amaad iyo magangeliyo, balse ma uusan helin wax uu beerkiisa ku tiiriyo. Laamiyada ayuu gogladaa, dadka wadada marayana waxa uu weydiistaa shilimaad. Mar ayaa uu isku dayay in uu bedelo noloshiisa oo uu wadamada Yurub u raadsado magangeliyo, balse way u suurageli weyday. Waxa uu niyadda ku hayaa ididiilo ah in uu safarka gali doono, Yurubna gaari doono. Markasta oo uu hiyi kaco, waxa uu naftiisa ku dejiyaa in uu maalin uun cagaha dhigi doono halkaas. Haddaba sidee, goorma ayuu bixi doonaa? Sidee ayuu halkaa ku gaari doonaa? Miyaa loo ogolaan doonaa? Dhammaan su'aalahaasi waa kuwo hor yaala oo aanu jawaabahooga haynin. Dharaaruhu way iskurayaan, habeenkuna wuu ka daba imanayaa, maalinba maalin ayay u dhiibaysaa. Sanad ayaa tegay, mana isbedelin xaalkiisii. Markii uu yaqiinsaday in safarkaasi aanu suuragal ahayn, wadankan uu joogana uu ku qaadan doono noloshiisa intuu Ilaahay ka qadaro, waxa uu go'aansaday inuu shaqo raadiyo. Balse ma aanu lahayn wax khibrad shaqo ah, mana uu garanayn xirfad uu ku shaqaysto. Haddana ma uusan ka daalin inuu wax uun raadiyo. Waxa uu isku dayay dariiq kasta oo macquul ahayd inuu shaqo ku helo, balse fursadda uu ku heli karayay aad ayay u yarayd, maadaama oo aanu luuqadda Carabiga ku fiicnayn. Muddo badan oo tacab iyo daal ah kadib, waxa uu iska jiibsaday gidaarka meel gawaadhida lagu maydho. Waxa uu u fiirsanayay qaabka ay u shaqaynayaan iyo marxaladaha ay marayaan gawaadhidu marka la maydhayo. Halkaas ayaa uu waqtigiisa ku qaadan jiray. Waxa ay isbarteen mid ka mid ah shaqaalaha goobtaasi oo ahaa nin naxariis badan oo gob ah. Waxa uu u keeni jiray cuntadiisa oo waa uu la wadaagi jiray. Wiilkii Afrikaanka ahaa waxa uu weydiiyey sida ay u shaqeeyaan inuu wax uga sheego. Ninkii waxa uu uga warmay inay mushahar yar ka qaataan maamulaha goobta, xoogaa bakshiish ahna ay ka helaan qofka gaadhiga loo maydhayo. Waxaana uu intaa ugu daray inuu goobtan ka shaqaynayay muddo 12 sano ah, biilkiisa iyo reerkiisana ay ugu filan tahay. Wiilkii wuu la tacajubay fikradani, waxaana uu ku yidhi, ma iga caawin kartaa inaad i barto xirfaddan maydhista gawaadhida? Waxaana uu ku yidhi, waan ku caawinayaa oo aan kula shaqaynayaa, wax mushqaayadana kaa qaadan maayo. Ninkii waa uu u oggolaaday, waxaana uu xirfaddii ku baray muddo 5 maalin ah. Noloshiisii way isbeddeshay xoogaa, waayo waxa uu helay meel uu seexdo oo goobta shaqada ayuu habeenkii ladi jiray marka la xidho. Waxaana uu helay goob uu ku maydho oo uu isku nadiifiyo. Nasiib darro, markii uu shaqadii bartay, ma uusan helin fursad uu kaga shaqeeyo goobtan, waayo wax boos ahi kama bannaanayn. Balse muddo kadib waxa uu helay goob uu ka shaqeeyo, waxaana ka bannaanaa boos habeenkii ah. Waxa uu go'aansaday inuu shaqadaa ku galo si kasta oo ay tahay. Shaqaalaha kale waa ay diidi jireen inay habeenkii shaqeeyaan, waayo waa waqti adag, gawaadhiduna way yar yihiin. Markii uu wiilku bilaabay shaqadii, waxa uu ogaaday inaanay shaqadu yarayn, bale habeenkii ay xaami tahay. Waxaana uu ka helay lacag fiican oo noloshiisa ku maareeyo. Qol ayuu kiraystay, cunto fiicanna wuu helay. 5 maalmood oo keliya ayuu ku bartay xirfad noloshiisii wax badan ka beddeshay. Waxaana uu kaga maarmay dariiqii uu jiifsanayay iyo dadkii uu wax weydiisanayay. Habeen ayaa waxa u yimid nin mulkiile hotel ah si loogu maydho gaadhigiisa. Xoogaa ayaa uu la sheekaystay. Waxa uu arkay inuu Carabiga jajabsanayo, Englishkana uu ku fiican yahay. Waxa uu u soo bandhigay inuu ka shaqeeyo hotelkiisa oo uu shandadaha u soo guro dadka soo degaya hotelka. Waxaana uu u sheegay inuu qaadan doono lacag aanu weligii ku riyoon. Sidoo kale, cuntadiisa iyo jiifkiisa uu hotelka ku leeyahay. Waxa kale oo uu raaciyay inuu heli doono bakshiish u dhigma mushaharkiisa uu ka qaato goobtan gawaadhida lagu maydho. Wiilkii farxad ayaa ula duuli gaadhay, balse waxa ka farxad badnaa mulkiilaha hotelka oo waxa uu helay nin dhalinyar ah oo ku hadli kara Englishka iyo Carabiga labadaba, kana shaqaynaya qaadida shandadaha hotelkana degan oo aan ka baxayn. Intaas oo kale ma jirin qof isla qabanaya, sidaa darteed hotelkiisa hoos u dhac ayaa haystay. Waxaana uu rajaynayay inuu imika helay qof ku habboon. Arrinta la yaabka leh ayaa waxay tahay, wiilkan marka uu qisadiisa inoo soo warinayo, ma uusan ahayn xamaaliga shandadaha qaada, balse waxa uu inala hadlayay isaga oo dhoola cadaynaya, kuna labisan isku jooga maamulayaasha. Waxaana laabta ugu qornayd caawiyaha maamulaha hotelka. Muddo badan oo uu hotelka ka shaqaynayay, waxa uu bartay xirfado badan, waxaanu kor u fantay fiiqa sare ee maamulka hotelka. Haddaba, ha u malaynin in ninka mulkiilaha ah iyo shaqada uu soo bandhigay ay ahayd nasiib iyo lama filaan. Maya,
ha u malaynin wixii dhacay waxay ahaayeen mid ku dul dhisan aayadda ah ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay qoomna ma beddelo ilaa ay nafahooda beddelaan bal ka waran haddii uu ninka mulkiilaha ahi uu arki lahaa wiilka oo iska jiifa gidaarka hortiisa oo gacanta hoorsanaya waxa uu u tuuri lahaa xoogaa shilimaad ah waanu iska dhaafi lahaa laakiin waxa uu la kulmay isaga oo shaqaynaya dadaalaya xilli habeenimo ah weliba hadal furfuran leh kadibna waxa uu ogaaday inuu yahay qofkii uu raadinayay tani waxay ahayd qisada wiil Afrikaan ah oo nolosha ka soo bilaabay Koyta ama Soogalooti ilaa uu noqday caawiyaha maamulaha guud ee mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee ku yaala wadamada Carabta. Soomaalidu waxay tidhaahdaa xaglo laaban xoolo kuma yimaadaan wixii aad u dadaasho baad helaysaa wax fadhiga kuugu imanayana ma jiraan haddaba ilaahay tala saaro asbaabtana la imo waad gaadhi meesha aad rabta waad mahadsantahay haddaad halkan ila soo gaadhay barnaamijka xigana la soco. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.